بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله intaa kadib assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa darsi ka mida duruusteenii taxanaha ahaa ee ku saabsanayd barashada higaada qur-aanka kariimka ah insha allahu tacaala waxaynu ka ambaqaadi doonaa suuratu taxriim khaasatan aayadda 8 ee suuratu taxriim oo aynu kala qaybinay laba bejkii hore oo aynu u qaybinay laba qaybood iyo bejka labaad oo aynu u qaybin doono insha allahu tacaala laba qaybood aayaddu waxay ku bilaabantay ya fadxa saaran yahay iyo alif waxaana ka dambeeya hamzuhuna wuxuu ka mid yahay xuruuftii u keenay sababtii madka keentay tani markaa ka tusa sababtii madka keentay waa hamzahaasi marka alifta oo xuruufta mad ah maxaa ku xiga hamze oo sababtii madka ahayd marka sala dheereynaya ya ayu yaadana waxa saaran shad ee ha iloobin haadana waxa ku akhridaa laamkaasi uu fadxuu saaran yahay ya ayyuhalladhiina halkan waxa weeyaan shaqal dheer baa saaran oo waxaa looga jeedaa hamsahan fadxaha uu saaran yahay weeyaan laakiin waxaa lagu dheereynayaa aliftaasi oo shaqal dheer keenaysa inay siiso aamanuu halkana waa shaqal dheer oo ah mad bil waaw halkana waa mad bil alif aamanuu marka halkana ha akhriyin xarafkaasi in badan bayna ka sheekeynay marka uu saaran yahay eberku xarafkaasi dambaska laga dhigay lama akhriyo laguma dhawaaqo aamanuu tuubuu halkan waa inaad jiidaa halkana waa inaad siidaa labadaba waxay noqonaysaa madbil waaw tuubuu hase yeeshee dabiicigii uu ka tegaya halkani maadaama halkan ay hamse saaran tahay hamsahana ay sababtii madka uu ahaa xaraf madkuna uu waawga ahaa shaqalka waxaa dheereynaya codkii oo laga dheereynaya xadkiisii caadiga ahayd buu oo waxa laga dhigaya 4 ama 2 ama 6 sida kulba aad ku dhiganaysa sheekha ku dhigaya uu yahay waxa lagu dhawaaqayaa آمنوا توبوا إلى الله اللهذا لفت الجلالة كجرا halkaasi waxaad weyneysaa laamka ku jira oo culays ka dhigtaa maxay yeelay fadxa ka horeeya fadxa iyo damma ka horeeyna waa la weynayaa banidi ila allah tawbatan buha asalkiisi nuun baa ka daba dhacday waa idqaam oo isku akhri markaa tawbatan nasuhan tanwiinta waxa ka daba dhacday cayn waa xuruuf al-idhaar markaa muuji nasuhan casa alifta hayloobin casa rabbukum ba'daha shadkeedii hayloobin rabbukum an yukaffira fa'daasina shad baa saaran hayloobin oo dadka qaar ba mooday inay wax saarneen halkaasi amaba khafiif u akhriya carabka debnaha yukaffira an yukaffira cankum wa ikhfa nuun iyo kaaf عنكم سيئاتكم يأذى شد بسارن يا هوس دو سيئا halkan waa shaqal dheer san kugu soo sheegay markii hore aan hadii hamze iyo iska daba dhacaan alif waa shaqal dheer laakiin hadii hamze qulaata aragto waa ama baad aragto hoos dhow waa ama uu dam saaran yahay waa imka marka halkan waxa saaran fadxa alif baa ka dambaysa saasoo kale shaqal dheer u noqonaysa sayi'aatikum wayud daalka qalqaladiisa hayloobin wayudkhilakum laamkana fadxa saaran oo hawran yudkhilukum oo kaafka iyo moodin in laamkuna dam saaran yahay fadxa saaran wayudkhilakum jannatin tanwiinta iyo ta'da isdhexgeli waxa weeyaan ikhfa jannatin tajri hakana jiid oo madbil ya ka dhig ري تجري من أيها تنوين نون ساكنة يوحد كتب دعضي يتا وإخفاء من تحتها لكن لامك هذا الاسكو أخرية تحتها الأنهار يوم لا هذا ولد ماشي ذيك صارتو موجساينة تهي من حلقية كصوب حسام عنها حق عنها قهوري يوم لا يخزي أيها زي لكن زائدا واحد كو آخر ذا لام كاسي وفتحو سارية هي يأذن ولا ما آخرية المستروسل ولا ما آخرية يخزي الله
oo allahdan iminka lama weyneynayo way kala duwan tahay tii halkaa aan kugu soo sheegan kudha weyne iyo iminka halkan oo kale labadan waxa weeyaan taasina way weyneyd allahdaas wuu weynaa allahdana way khafiif oo maadaama yu ka hoos dhow ka horeeyo laa yukhzi illaahu laa halkana wuxuu ahaa ila allahi laa yukhzi illaahu الnabiya wاladiina shaqal dheer aamanuu shaqal dheer haddana aamanuu macah oo markaad istaagayso haadaasi waxaad siinaysaa sukuunsii oo sukuun ku istaag hase yeeshee haddaad doonaysa inaad isku xidho oo labadan kelmadood isku xidho waxaad siinaysaa damihii iyo shaqalkii dheeraayee ahaa huu oo dami oo waawi saqiira ahaa madkii ahaa macahu nuuruhum nuu dheere nuuruhum dama iyo miim sukuun nuuruhum yascaa bayna aydiihim d waa inaad jiidaa maxaa yeelay yadii kasra yadii waxaa ka horeeya hoos dhow d aydiihim wa biaymaanihim halkaas hamsa ku jira iska ilaali ba noqonaya halkaas wa yadina sukuun ba saaran wa biaymaanihim yaquuluuna shaqal dheer iyo shaqal dheer quluuna rabbana dheeree mad baa dhashay rabbana bacdana hashadka hayloobin rabbana rabbana atmim waa markaad dheerayso dheh atmim soo jeedi naqaskira soo saartaada atmim lana nuurana haddaba waxa wowganiyo qoynkaa isku akri oo hamsatul wasligaa ka bood waqfir waaw wii kaa noqonin wa qoyn waqfir lana dad isku xidhayso mid baa dharanaya maadaama halkaa uu ku jiro xarfil mad oo alifta ah sababtii madkuni ay tahay hamzahan markaasa lana innaka calaa kulli shayin qadiir tanwiintan iyo qaafkan waa ikhfa isku akri maxaa yeelay qaafku wuxuu ahaa xuruuf listiclaa qunuhuna waa weynaanaysaa markaa shayin qadiir yaa ayuha nabiyu ya-da waxaa ka dambeeya alif iyo hamze mad baa dhashay marka dheere yaa ayuha nabiyu hada iyo nuunka isku akri ayuha nabiyu jaahidil daalkan waxaad ku akridaa laamka uu sukuuntu saaran tahay jaahidil kufaara fa'dana hashadkeedii hayloobin iyo shaqalkeedii dheeraa jaahidil kufaara walmunaafiqiina waaw laam walmunaafiqiina waqlud voda waxa saaran sukuun qoynkana sukuun ba saaran laamkana dama saaran hamsatul wasliga ka bood marka waqlud calayhim wama'waahum hamzaha waxa saaran sukuun markaas sukuuntiisa muuji wama'waahum jahannam haddaad ku istaagayso sukuun baa la siinaya haddaad laakiin isku xidhayso kelmadan iyo kelmadan sukuuntiiba ka tegaysaa damahaasii qaadanaysaa waxay noqonaysaa wama'waahum jahannamu mim dama jahannamu wabi'sa almasiir halkaa waxaa saaran hamze ba baa ka horeysa wabi'sa sidii wax muujinaya inaad hamse akhriyayso oo sukuun saaran yahay oo naqaskii aanad iyo iyo nimida odhanaynin uu kaa go-ayo oo aad tusayso in ay sukuuni halkaas saaran tahay wabi'sa almasiir allah inagu anfaco dhammaantiinba.